ardayda wax ka barata dugsiyada gobolka Awdal gaar ahaan fasalada 8aad iyo 4aad ayaa maanta imtixaanka shahaadiga Somaliland u fadhiistay isku duwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Cumar Suldaan Indhamood ayaa saaka kormeer ku tagay dugsiyada waxbarasho ee magaalada Boorama qaar kamida macallimiinta iyagu shaqada ku leh imtixaanaadkan shahaadiga ah ayaa dardaaranno kala duwan u diray ardayda saaka imtixaanaadka u fadhiisanaysay ardayda nin walba liisku ugu hordhajisay iyo iskuulka magaciisa gidaarka waxa ku qoran roll numberku halka uu ka bilaabmo ilaa halka uu ku dhamaado inta galaaska ku galasa iyo iskuulka uu yahay qolkaas ama roomkaas iyo roomka uu yahay marka qof walba magacaaga iyo roomka ku galeesid iyo iskuulkiinaba gidaarka uu kugu qoray waxaan si buuxda u cadeynaynaa haddaan nahay maamulka dugsiyada nahay oo kalsoonahay ardaydaas inaan nahay arday wax soo barnay waxaan kalsoonahay imtixaanka aad galeysaan inuu yahay wixii aan barnay waxaan kalsoonahay imtixaankaas inuu cadaalad noqon doono waxaan kalsoonahay aqoontiina iyo waxaan barnay sidaa awgeed waxaan doonaynaa sharaf dugsiyada leeyihiin inaad ilaalisaan waxaan doonaynaa inaad ilaalisaan dhammaan waxa la wixii shuruudaha ee idinka doonayay dhammaantood salaamantiin intaasi kadib isku duwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal oo kormeer ku soo marayay dugsiyada waxbarashada ee magaalada Boorama ayaa ka warbixiyay qaabkan uu saaka u bilowday imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada hoose dhexe sare ee gobolka Awdal gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Awdal ayaa sheegay in imtixaanaadka ardayda dugsiyada sare u fadhiisatay ay tiradoodu dhan tahay 1459 arday dugsiyada hoose dhaxana waxa u fadhiisatay 1772 arday guud ahaanba wadarta marka la isku geeyo sanadkan imtixaanaadka shahaadiga gobolka Awdal u fadhiisatay ayaa tiradoodu waxay dhan tahay 3231 arday oo gobolka Awdal u fadhiisatay imtixaankii shahaadiga ahaa kii dugsiyada sare ee form 4ka kii dugsiyada hoose dhexe ee eedhadhka naxariis iyo nabadgelyo noogu bilaabay si fiican ay noogu socoto farxad leh ardaydii ay sidii ugu wanaagsanayd ay uga qayb galeen si degan isku kalsoonaan leh ilaahay arrintaasi noo suuro geliyay ayaan mahadnaqaynaa oo mahad iyo maamuus leh haddaan gobolka Awdal u soo dego waxa weeye tirada dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedkani GC-da u fadhiisatay waxa weeyaan 1459 arday oo iskugu jira gabdhiyo wiilalba dugsiga dhexe waxay imtixaanka sanadkan u fadhiistay 1772 arday oo iyaguna iskugu jira gabdhiyo wiilalba tirada guud ee ardayda ka qayb gashay imtixaankan shahaadiga ah ee maaragtay midna jaamacadda loogu diyaar garoobayo midna dugsiga sare lagu soo galayo ardayda kolka la isku daro gobolkan Awdal sanadkan u fadhiisatay waxa weeyaan 3231 arday weeyaan Allahumma salli ala Muhammad goobaha gobolka Awdal imtixaanada lagu galay ee maanta dhammaantood si habsami ah uga bilaabmay oo hufan waxa weeyaan 22 goobood weeyaan gobolka Awdal weeyaan oo qaarna yihiin degmooyinka dibadda inta badanna ay tahay magaalada gudaha way tahay isku soo wada duuba waxa muddooyinkii u dambeeyay hoos u dhacaad weyn uu ka muuqday kaalmihii waxbarashada ee gobolka Awdal ay Somaliland ka soo hoyn jireen taasi oo loo aanaynayo habka maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal oo hoos u dhacaad weyn uu ka muuqdo Ahmed Diriye Ciltire magaalada Boorama.